daawadayaal garabkayga midig waxa taagan xildhibaan Jamaal Aadan Diiriye oo kamid ah xildhibaanadii golaha wakiilada ee ka soo baxay gobolka Maroodijeex gaar ahaan xisbiga wadani xildhibaan xisbigiin hoggaan cusub oo doortay gudoomiye cusub loo doortay gudoomiye Cabdiraxmaan Cirri xisbigu wareejiyo gudoomiye Xirsi Cali Xaaji Xasan buu ku wareejiyay bal arrinka ka war xoday aad baad u mahadsan tahay runtii arrinka laba dhinac baynu ka eegi karnaayo waa mid horta gudoomiyuhu wuxuu horseeday waxaan lagu arag hogaamiyaasha Afrikaanka oo ah inuu xilkii wareejiyay isagoo wali la dooran ama aan madaxweyne noqonin inta badanna way adagtay qof Afrikaan in xilka laga furfura ama way ku dhintaan sidii ay wadamada Carabta ku arnay meelada Afrikaanka ah ama way ku dalaasaqaan laakiin isagoo hadduu go'aansaday maanta inuu maartay ummadda aanu hortaagnaan mar walba istijaabiyo chance kana siiyo dadka kale xisbiga madaxda ka ah runtii waa mid gobonimo aniguna muddo aan la soo shaqeeyay gudoomiyaha gobonimada waan ku bartay si fiican buu sameeyay dhinaca kale hoggaanka la doortay waa ciidiyo kulmiyo soo wareegay wax soo meesha yimi ma jira xisbiyadeennuna ilaa hadda cid fikir xambaarsan oo ummadda danteedii rasmiga ahayd ka talinaysa way ku yartahay kulmiyo ciidiyo wadani waxba isku daro intii xeerada wax ka weydin baa xeerada kale u dareerta xisbigii u wareejiyay Cabdiraxmaan ma is leedahay guul shii 2017 keenay mid ka sii sarreeyay doorkan keeni doona wallahi waxa ku xirantay dadka cusub ee la doortay si ay u shaqeeyaan bulshadeedna kulli way iska raaci doontaa arishu wax kameel baxo anu runtii waxaan taaganahay inta la helayo ummadda cid hoggaana oo ka fikiraysa danteeda oo ka fikiraysa aqoonyahanka in xagga hore la mariyo culimadu sharaf yeelato dadka karaamada leh ay ummadda u hadlaan oo la joojiyo afku xooglaha iyo dadkan hantida ummadda u soo shaqo tagay iyo dadkan kolboon xisbigaas aan gala kaasaan ka baxnay inta taa ka ilbaxayna kulli dalku halkaas u taagnaanaya laakiin xagga in codad kala badiya waa kan ku bedelo ka bedeloon wax badan isma bedelayaan yeelka hadda waxa laga yaabaa si kuwaas u shaqeeyaan cusub ee la doortay xubnaha la soo kordhiyay ayay ku xidhan tahay Cabdiraxmaan kulli waa dadaalaya nin sharaxan waxba iska karan maayo laakiin waxay eegi doonaa si kuwa kale intii soo kordhiyaan waa la eegi doonaa dadka waxay isweydiinayaan oo dadka inta badan social media isticmaasha wadi ka codeeyay qodobka maxaad leedahay nimankii goor ma heshiiseen Soomaa marka hore ismaanaan hayn shirgudoonku baa la codeynayay shirgudoonka gudoomiyaha golaha wakiilada qof waliba codku cid xoriyay buu siinaya intii aan golaha ku jiray laba mooshin baa igu soo maray wax la isku khilaafsan yahay mooshin aan ka codeeyay qoladii mucaaradka iyo mooshin mucaaradku la ordayo sidaan u codeeyay marka mooshinada golaha imanaya waxaad ka eegaysaa fikirkaaga iyo aqligaaga iyo ra'yigaaga laakiin xisbinimadii waa laga tagayaa marka la gulaariyo kadib xildhibaan baa tahay xildhibaannimadaas ma lagu shaqeynaya marka waxaan isku hayno nimankii xisbiga odayaasha ma jiro waa rag runtii sharafiga mudan ixtiraamiga mudan kulli dhalinyarada social media waxaan kula talinaya siyaasaddu maalin maaha way soo bedelaysaa anigu waxaan soo joogay markaan sidoo kale dhalinyarada ahayn iyadoo madaxtooyadu ay camiran tahay oo madaxweyne yahay oo Xirsi Cali Xaaji wasiirka ugu awoodda badan yahay oo maxamuud xaashi fadhiyo oo waxaan ku leeyahay ninka inaga yaaliyo Xirsi baa soo diray iyo xisbiga inaga kharibin maanta xisbiga Xirsi baan ku wareejinay marka berrida ninka si fog lagu wareejiyo laga yaabo siyaasaddu isbedelaysaa yaan la digdegin waa la isu baahanayaa dalka Soomaaliland waa ummad isku wada mid ah dhankan waa loo baahan yahay arrinka markii ka nimaadno xisbiga degmada Sawanaag baa laga soo doortay codka ugu badan halka ka heshay Sawanaag baa dadka migaadku ugu codeeyay waxbarashadoodu aad bay hooseysaa iyo caafimaadkeeduba qodobka waxbarashada waxa la leeyahay miisaaniyadii sanadka 2021 iyo 2022 waa laga reebay arrinka maxaad kala socotaa xildhibaan taas wax dhici kara maaha runtii miisaaniyadu haddaan xan ahayn golaha wali ma imanin xukuumadda ay ku maqantay laakiin wax dhici kara runtii maaha waxaana u dhici karin wasiirka waxbarashada aan saraxnay indhihiisu ku soo arkay wuxuu ku soo arkay boodhanada ay deegaanka degmadu gacanta ku hayaan ay ka bixiyaan kharashkooda iyo qaaraankooda ee aan $1 wasaaraddu u sheeganin ee macallimiintu aanay gunaysnayn ee maalin walba ay 100 arday iyo 150 arday ku xariisan wuxuu soo arkay 70 kiiloomitir oo iskuul iyo waxbarasho midna aan lahayn oo hadda gobolka Maroodijeex ku yaala isaga lafiisa u yaabay waxaan saraacnay wasiirka ku-xigeenka isagana Cabdixakiin cadaad leebaan soo marnay iyadoo ay wada dhiganayaan 5 ilaa ulo ay ku dhiganayaan hal class sidoo kale 8 ilaa ulan ay ku dhiganayaan hal class intaas arday banaanka fadhiyaan isaga laftiisa yaabay caafimaadka waxyaaba ka sii liitay ka mid waa haba ka sheekayn biyuhuna waaba halis haddana biyaraani ka jirtaan kula hadlayo way roobkii deertu mudiin kaliishan roob badan lama helin baraagii wada mariyihiin imikadana deegaanku dayacan xagga biyaha waxbarashada iyo caafimaadka saddexdaba marka saddexda mid miisaaniyada laga reebi karo Sawanaag cadaad litoona hadii laga reebo miisaan ansaxayso maahe waxaan filayaa inaan ahayn miisaaniyad loo cadaalad sameeyay ama lagu eego indha caadi
wasiirada khusaysan ay khusaysa runtii waxaan isleeyahay xilligan joognana dawlad waddo kale ka jirta dalka oo ka taliyo nin madaxweynaha oo ka warhaya waxa wasiiradiisu qabanaya marka madaxweynaha waxaan ugu baaqayaa inuu miisaaniyadaas fiiro gaar ah u yeesho intaanay soo dhaafin golaha wasiirada aad baad mahadsantahay